kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Garaati fi qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa kamid ah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sheegay in ciidamada dawladda Soomaaliya ay kala dhaxgaleen maleeshiyad ku dagaalamaya degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose dawladda Kenya oo Itoobiya ugu baaqday in aysan ku soo xadgudbin deegaanada Jubbaland ee ay ka howlgalaan ciidamadeedu khilaaf xoogan oo soo kala dhaxgalay madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dane iyo ku-xigeenkiisa Karaash muxuu salka ku hayaa wararka Garaati ayaad ku daawan doontaan dawladda federaalka Soomaaliya waxay kala furfuraysaa madasha xisbiyada qaran iyadoo wada hadal kula jirta hogaamiyaha xisbiga Ilays xildhibaan Cabdulqaadir Cusable Cali ciidamada booliska dawladda federaalka Soomaaliya waxay xabsiga dhigeen agaasimihi waaxda maaliyadda wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya oo lagu eedeeyay arrimo musuqmaasuqa xabsiga magaalada Berbera ee Somaliland waxa ka baxsaday maxaabiis ku xukunno kala duwan kuwaas oo ilaa iyo haatan lahayn meel jaan iyo cirib dhigeen akhbaraadka ka baxsan wararka Soomaalida aad ku daawan doontaan warka Garaati waxa kamid ah ilaa iyo 8 kooxood oo taageerta dawladda Iiraan kala hawgasha wadanka Ciraaq ayaa shaaciyay inay ka hortagayaan falalka guraacan ee Mareykanku ka wada wadanka Ciraaq ayagoo ra'iisul wasaaraha cusub ee wadanka Ciraaqna ku eedeeyay inuu si gaar ah ugu shaqeynayo Washington iyo ra'iisul wasaaraha wadanka Britain Boris Johnson oo la dhigay isbitaal kadib markii 10 maalmood ka hor laga helay xanuunka COVID-19 intaas waa qayb kamid ah qodobada aad ku daawan doontaan wararka Garaati daawadaya waqti wanaagsan meel walba oo dunida daafeeda naga dheehanaysa kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Garaati fadlan daawadayaad joogto xilligii salaada suutuka waajibka la dibna u bilowina daawatid muuqaalkan kadib markaa soo gudatid waajibka ku saaran macadka Daarul Xifaad oo ku yaala magaalada Hargeysa wuxuu si online u bixinaya barashada Quraanka Kariimka iyo xadiista haddaba haddaad dareynaysid inaad ka qayb qaadatid isla markaasna aad online ku baratid Quraanka Kariimka iyo xadiista la xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda aynu ka horeyna madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in ciidamada dawladda Soomaaliya ay kala dhaxgaleen maleeshiyad ku dagaalamaya degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ku baaqay in madaxda dawlad goboleedka Koonfur Galbeed odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka ay u istaagaan sida loo xalin lahaa colaadda micna darrada ee beelaha walaalaha ku dhaxmaraysa degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose madaxweynuhu waxa uu bogaadiyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo ayagu ku baxay degmada Walaweyn si ay uga hortagaan colaaddu inay sii socoto kala dhaxgalay maleeshiyadka halkaas ugu dagaalamaya sida uu xaqiijiyay madaxweynaha qaranka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ayaa yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaa nasiib darro weyn in dalkeena ay ku dagaalamayaan maanta dad isku dilaya qabyaalad maleeshiyad dhiigooda daadinaya iyadoo aysan jirin in aysan ogeyn dadkaasi inay fooda nagu soo hayaan maalmihii barakaysna ee bisha Shabcaan loona baahan yahay cibaado badan iyo sadaqo asagoo sheegay in arrintaasina ay tahay wax laga xumaado madaxweynaha ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay qaadanayso tilaabo kaseeto lagu xaqiijinayo xasiloonida iyo nabadgelyada deegaanka dhibaatada ka dhacda iyadoo loo dirayo halkaasi guddi soo baara dhibaatadii halkaasi ka dhacday iyo sidii wax looga qaban lahaa madaxweynaha ayaa u tacsiyeeyay dhammaan beeladii iyo qaraabadii ay dadka birmageydada uga geeriyoodeen magaalada Walaweyn taasoo si dadka loo dilay arxan darra sida lagu faafiyay baraha bulshada
degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxaa ka dhacay dilal aad u food xun sida ay dadka deegaanku sheegeen. Dadka qaarkood ayaa la gowracay kadibna dab la qabasiiyay iyadoo baraha bulshada lagu faafiyay nin la bireeyay kadibna la gubay asagoo holcaya, isla markaasna shacabka Soomaaliyeed ay arrintaasi ku tilmaameen fal argagixis ah isla markaasna aan loo dulqaadan karin. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wada tillaabooyin ay ku doonayso inay xal uga gaarto colaadda Walaweyn isla markaasna lagu soo afmeero. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa isna dhankiisa wada dadaalo kala duwan oo ku doonayo in arrintaas wax looga qabto, inkastoo odayaasha dhaqanka qaarkood ay ku eedeeyeen inuusan maamulka sidii loogu talagalay uusan uga howlgelin deegaanadaas isla markaasna uusan u soo kala dhaxgelin maleeshiyaadka isdilaya. dowladda Kenya ayaa Itoobiya ugu baaqday inaysan ku soo xadgudbin deegaanada Jubbaland ee ay ka howlgalaan ciidamada wadanka Kenya. xukuumadda Kenya oo horkacaya madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa ka dalbatay Itoobiya inaysan ku soo xadgudbin ciidamadeeda deegaanada Jubbaland maadaama ay ka howlgalaan ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta ee Midowga Afrika AMISOM. Kenya waxay si weyn uga carootay tillaabada ciidamada Itoobiya ay uga soo gudbeen xuduudka ayna gudaha ugu soo galeen gobolada Jubbooyinka iyo Gedo si ay u garab siiyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, iyadoo ugu baaqday xukuumadda Addis Ababa inay ciidamadeeda soo gelin deegaanada dhaca sector 3 isla markaasna sida Jilib, Saako, Bu'aale, Doobley, Kismaayo iyo sidoo kale magaalooyin kale oo ka tirsan deegaanada Jubbaland. waxaana qaarkood ku sugan ciidamada dalka Kenya halka kuwa kaleetana ay gacanta ugu jiraan Al-Shabaab, iyadoona ay doonayaan in haddii loo baahdo ay ka xoreeyaan balse aysan imaan ciidamada dowladda wadanka Itoobiya oo ay cabsi weyn Kenya ka qabto. dowladda Itoobiya ayaa weli ka jawaabin warqadda codsiga ee u dirtay Kenya, waxaana si weyn u taageeraysaa dowladda federaalka Soomaaliya oo ay doonaysaa inay ka caawiso gacan ku soo dhigitaanka deegaanada Jubbaland, qaasatan caasimadda maamulkaas ee Bu'aale oo muddo ka badan 10 sano oo gacanta ugu jirta dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. iminkana ay kaabiga ku hayaan ciidamada huwanta oo iskugu jira xoogga dalka iyo ciidamada wadanka Itoobiya ee ka tirsan AMISOM. dowladda Kenya waxay dareensan tahay ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay gacanta ku dhigaan inta badan deegaanada Jubbaland inay taasi wiiqi doonto awoodda maamulka uu hogaamiyo Axmed Madoobe oo Nairobi si weyn looga taageero, suurtagalna ay noqon karto in gabi ahaanba uu meesha ka baxo hogaamiyaha Jubbaland ee xilligan. dowladda Soomaaliya ayaana madaxweyne cusub la doonaysa inay u samayso deegaanada maamulka Jubbaland, isla markaasna doonaysa inuu bedelo Axmed Madoobe oo muddo badan iska haysta deegaanada Jubbaland. si kastaba ha ahaatee lama oga sida dowladda Itoobiya ay ka yeeli doonto codsiga uga yimid wadanka Kenya ee ku aadan in ciidamada dowladda Itoobiya aysan ku soo xadgudbin deegaanada Jubbaland oo ay gacanta ku hayaan ciidamada wadanka Kenya ee ayaguna qaybta ka ah howlgalka AMISOM. khilaaf xoogan ayaa soo kala dhaxgalay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dane iyo ku-xigeenkiisa Axmed Karaash. wararka aynu ka helayna madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland waxay ku waramayaan inuu halkaasi ka soo ifbaxay khilaaf u dhaxeeya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dane iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash, kaasoo ku salaysan isku shaandhayn la doonaya in lagu sameeyo golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland. wareedyo ayaa ka gaabsaday inaan magacooda shaacino. waxa ay sheegeen in madaxtooyada la isku mari waayay sidii isku shaandhayn loogu sameyn lahaa golaha wasiirada, isla markaasna wasiirada ka imaanaya gobolka Sool ayuu madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland asagoo codsaday in lagu tixgeliyo, taasna uu ka biyo diiday madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dane.
mudane Axmed Karaash ayaa doonaya in shakhsiyaadka laga magacaabayo gobolka Sool ay ku yimaadaan tala bixintiisa isla markaasna gobolkaas uu door bidayo inuu saami muhiim ah ka helo oo miisaan weyn golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland. waxay wararku intaasi ku sii darayaan in kulan ay yeesheen labada dhinac ay isku fahmi waayeen isla markaasna ay labada dhinacba shirkaasi ku kala istaageen iyadoo madaxweyne Dani uu ka cagajiidayo codsiga madaxweyne ku-xigeenka ee ah in wasiirka arrimaha gudaha dib loogu celiyo saamiga gobolka Sool isla markaasna gobolka Sool la siiyo wasiiro dhaxalgala. wasaaradaasi waxaa xilligii Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayay Cabdullaahi Cali Xirsi timcad oo kasoo jeeda gobolka Sool balse waxaa haatan haya Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad oo asaguna kasoo jeeda gobolka Mudug. waxaana doonaya madaxweyne ku-xigeenka in xilkaasi loo dhiibo nin kasoo jeeda gobolka Sool. sidoo kale labada dhinac ayaa isku mari waayay oo isku maandhaafay shakhsiyaad la doonayo in loo magacaabo gobolka Sool iyo gobolka Cayn waxaana mid kaseeta uu ku adkeysanaya go'aankiisa taasoo dib u dhac u keentay isku shaareyn la doonayay in xukuumadda lagu sameeyo golaheeda wasiirada. isku shaareynta waxaa la filayay inay soo shaabacdo saacadii la soo dhaafay iyadoo la diyaariyay liiska golo wasiiro taasoo ugu dambeyntii fashilantay markii labada dhinac ay isku qaqabsadeen. lama oga sida madaxweyne Dani uu ku wajihi doono khilaafka ka dhashay isku shaareynta golaha wasiirada iyo inuu arrintaasi xallin doono. madaxweyne Dani ayaa sheegay in lagaba maarmaan tahay in si degdeg ah isku shaareyn loo sameeyo golaha wasiiradana lagu sameeyo si wax looga bedelo nidaamka maamul ee deegaanada Puntland ee iminka. maalmihii ugu dambeysay siyaasiyiin iyo shacabka deegaanada maamulka Puntland ayaa ku eedeynayay madaxda sare ee Puntland inay ka gaabiyeen inay keenaan wasiiro dhaxalgala oo bulshadooda u shaqeeya taas oo madaxweynaha Puntland ku dadajinaysa inuu qaato go'aanka isku shaareynta golaha wasiirada balse caqabada ugu weyn ee iminka taagan ayaa ah saami qaybsiga iyo sida uu doonayo Axmed Karaash in loo dhigo golaha wasiirada. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kala furfuraysa madasha isbahaysiga xisbiyada qaran waxayna haatan wadahadal kula jirtaa hogaamiyaha xisbiga Eleys Cabdulqaadir Cosoble Cali. dowladda Soomaaliya ayaa dadaal ballaaran ugu jirta inay kala dhantaasho madasha isbahaysiga xisbiyada qaran ee uu hogaamiyo madaxweynihii horeeta ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ay ku mideysan yihiin ilaa iyo 6 xisbi oo mucaarad ku ah dowladda Soomaaliya. xukuumadda nabad iyo nolol ayaa wadahadal kula jirta maalmihii dambeeyay xildhibaan Cabdulqaadir Cosoble Cali oo ah hogaamiyaha xisbiga Eleys oo ka tirsan madasha xisbiyada qaran waxa ayna ku qalqaalinayaan inuu gabi ahaanba ka baxo madashaasi oo ku biiro xisbi ay sameysanayaan madaxda dowladda Soomaaliya. wadahadalka oo aan wadi mira dhalinaya xubnaha ku agdhow xildhibaan Cabdulqaadir Cosoble waxay sheegeen inuu ka fakarayo dalabka ay madaxda dowladda Soomaaliya u soo bandhigeen iyo suurtagalnimada inuu baneeyo garabka saaxiibadiisa kale ee madasha uu ka tirsan yahay taas oo ay ku boobeen mucaaradnimada dowladda uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. awoodda madasha xisbiyada qaran ayaa waxaa si weyn hoos ugu dhacday bilihii tan iyo markii ay soo baxday guuxa ku aadan inuu lagu muransan yahay cidda hogaanka u noqon doonta xal xisbi oo ay ku heshiiyeen xubnaha madasha oo ay ku midoobeen inay xisbi ay sameystaan si ay doorashada ugu tartamaan. dowladda Soomaaliya ayaa kala kulmaysa madasha xisbiyada qaran cadaadis xoogan oo ku aadan in doorashada waqtigeedii la qabto isla markaasna dowladda ku dhaliilaya howlaha ay ka wado gudaha wadanka Soomaaliya gudihiisa iyo sidoo kale sida ay la tacaalayso maamul goboleedyada arrinta wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland. xukuumadda Soomaaliya ayaana la aaminsan yahay inay juhdi badan ku bixinayso kala qaybinta iyo kala dhantaalinta madaxda madasha xisbiyada qaran ku mideysan ee iskugu jira 6 xisbi ee iyagu ku midoobay sida u dhaliili lahaayeen xukuumadda ayna u toosi lahaayeen. ciidamada booliska Soomaaliyana waxay xabsiga dhigeen agaasimihii waaxda maaliyadda wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya oo lagu eedeeyay musuqmaasuqa.
ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gurigiisa kala baxay xabsigana u taxaabay agaasimihii waaxda wasaaradda caafimaadka Maxamed Buule. agaasimaha la xiray xafiiska antidhowrka guud waxa uu ku eedeeyay arrimo la xiriira musuqmaasuq iyo wax isdabamarin uu ku sameeyay lacago loogu talagalay ka hortagga cudurka COVID-19. wararku waxay intaas ku darayaan in agaasimaha la weydiiyay su'aalo la xiriira halka ay ku maqan yihiin lacagahaasi, waxaana antidhowrka guud uu baaritaan ku sameeyay xafiiska agaasimaha taas oo soo dedejisay xarigiisa. sidoo kale waxaa la sheegay in lacagaha maqan ay yihiin lacago loogu talagalay arrimaha caafimaadka iyo ka hortagga cudurka coronavirus oo ay bixiyeen hay'adaha UN-ka. waxaa sidoo kale la sheegay in mas'uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka la tuhunsan yahay inay ku lug leeyihiin arrimaha musuqmaasuqa, iyadoo ay soo bixeen warar sheegaya in lacagtaasi loo isticmaalay adeega ganacsiga ee online-ka ee loo yaqaano Forex. ma jirto ilaa iyo haatan wax war oo ka soo baxay antidhowrka guud ee qaranka iyo laanta dambi baarista booliska taas oo ku aadan xariga agaasimaha iyo wararka sheegaya in lacagaha la musuqmaasuqay loo haysto asaga iyo inay jiraan mas'uuliyiin kale oo ku lug leh. si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeysay ku andacoonaysay inay isla xisaabtan adag marsii doonto cid walba oo ku tagrifasha hantida qaranka. mas-uulkan ayaa la xiray iyadoo dowladda Soomaaliya dhawaan ay sheegtay inay tilaabo walba u adeegsan doonto sidii looga hortagi lahaa xanuunka COVID-19 ayna ku bixinayso dhaqaale badan si cudurkaasi loo xakameeyo. xabsiga magaalada Barbarana dad ku xukunno kala duwan ayaa halkaasi ka baxsaday. xabsiga dhexe magaalada Berbera waxaa ka baxsaday xilli dameete oo habeen maxaabiis ku xirnaa oo ku xukunno kala duwan. maxaabiista ayaa ila wareedyo lagu kalsoon yahay Garaa TV oo xaqiijinay tiradoodu dhamaayeen 4 maxbuus, isla markaasna 3 ka mid ah ay ku xukunaayeen inta u dhaxaysa 5 sano ilaa 8 sano oo xabsiya. lama garanayo halka ay tageen maxaabiista ka baxsaday xabsiga dhexe ee Berbera iyo cidda arrintaasi ka caawisay midkoodna. xukuumadda Somaliland ayaa dhinaca kale sheegtay in xabsiga dhigtay 4 askari oo ka mid ahaa ilaaladii ku qorneed waqtigaasi, kuwaas oo lala xiriirinayo falkaani. ma aha markii ugu horeysay ee maxaabiis sidaan oo kale ay ka baxsadaan xabsiyada Somaliland. booliska Somaliland ayaa sheegay inay dadaal ku bixinayaan sidii loola xisaabtami lahaa cid walba oo door ka qaadata dadka dambiilayaasha ee xabsiyada ka baxsanaya. tilaabadan ayaana si weyn looga hadlayaa deegaanada Somaliland iyo cidda fududeysay oo xukuumaddu ay baaritaan ugu jirto, iyadoona la sheegay in maxaabiista dambiyada kala duwan ku xukunaa ay dowladdu baadigoobayso si ay gacanta ugu soo dhigto. wali waxaad daawanaysaan wararka Garaa TV daawadayaal meel walba aad joogtaan waqti wanaagsan. ilaa iyo 8 kooxood oo ka howlgala wadanka Ciraaq taageerana waa dowladda Iran ayaa ku dhawaaqay inay ka hortagayaan waxay ugu yeereen xadgudub ay dowladda Mareykanku ka wado gudaha Ciraaq. 8 kooxood waxay isbahaysi la yihiin Iran waxayna ku sugan yihiin Ciraaq, waxayna sheegeen inay ka hortagayaan kana jawaabayaan daandaansiga iyo gardarada Mareykanka, iyagoo ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha cusub ee wadanka Ciraaq inuu la leeyahay gacan saar dhow xukuumadda Washington. waxay soo saareen bayaan si wadajir ah maalmo kadib markii taliyaha cusub ee ciidamada Qudus ee Iran Ismaaciil Qataani uu booqday Baghdad asaga oo daaha ka qaaday inuu ku guuldareystay mideynta ciidamada Shiicada Ciraaq maadaama ay sii wadaan saameynta dowladda cusub. sida lagu sheegay bayaanka, kooxuhu waxay iskugu jiraan Al-Saa'ib, Ahlullah Xaq, Liwaa Imaam Cali, dhaqdhaqaaqa xarakaadka ee loo yaqaano An-Nujuma, waxayna wacad ku mareen inay weerari doonaan ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciraaq. sidoo kaleetana waxay dhaleeceeyeen ra'iisul wasaaraha cusub ee wadanka Ciraaq Sufri oo ay ku eedeeyeen inuu garab taagan yahay xukuumadda Washington ayaa iyadu horey u dishay taliyihii dowladda Iran u qaabilsanaa bariga dhexe, kaas oo si weyn
ay Iiraan iyo taageerayaasheedu uga xumaadeen. ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa la dhigay isbitaalka kadib markii 10 maalmood ka hor laga helay xanuunka COVID-19 sida aynu ka soo xiganay Downing Street. waxaa la geeyay isbitaal ku yaala magaalada London kadib markii calaamadaha fayrasku ay ku soo siyaadeen sidoo kale tan uu sare u kacay heer kulkiisu. ra'iisul wasaaraha ayaa weli mas'uul ka ah dawladda balse wasiirka arrimaha dibadda ayaa lagu wadaa inuu hogaamiyo kulanka Isniinta looga hadlayo fayraska corona. Mr Johnson ayaa lagu wadaa inuu ku nagaado isbitaalka. Johnson ayaa guriga ku shaqeynaya tan iyo markii lagu dhawaaqay in laga helay xanuunka coronavirus 29 Maarso. ra'iisul wasaaraha ayaa horay muuqaal bartiisa Twitter-ka u soo dhigay ku sheegay inuu dareemayo calaamado yaryar oo fayraska coronavirus ah. Britain ayaa ka mid ah meelaha saameynta xooggan ku yeeshay cudurka coronavirus waxaana ra'iisul wasaaruhu iminka uu la daalaa-dhacaya xanuunkaas oo kula jiro isbitaalka. si kastaba ha ahaatee dowladaha caalamka ayaa la kufoo dhacaya iminka cudurka coronavirus iyagoo raadinaya midka kaleeta inuu ka helo gargaar uu cudurkaasi iskaga xakameeyo. waxaan naga daawanaysaan Garaa TV daawadayaal meel walba aad joogtaan. waqti wanaagsan idinkiinba intaan ku kulmi doono warar la xiriira. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.